ku socoto taliska nabad sugidda ee gobolka Banaadir ku socoto taliska qaybta guud ee booliska gobolka Banaadir ku socoto taliyaha NISA ee garoonka diyaaradaha Aadan Cadde ku socoto taliyaha booliska ee garoonka Aadan Cadde ku socoto gudoomiyaasha degmooyinka Xamarweyne Xamar Jajab waa Beri Wadajir iyo Dharkeenley ku socoto milkiilayaasha guryaha iyo dhulalka ku leh xeyndaabka garoonka diyaaradaha Aadan Cadde ku socoto shirkadaha dhismaha magaalada Muqdisho ku socoto dhammaan dadka degan xeyndaabka garoonka diyaaradaha Aadan Cadde og agaasimaha guud ee howlaha guud ee gobolka Banaadir agaasimaha guud ee dakhliyaadka kala duwan ee gobolka Banaadir taliska ciidanka ilaalinta deegaanka Xamar maareeyaha guud ee hay'adda duulista hawada Soomaaliyeed maareeyaha guud ee garoonka diyaaradaha Aadan Cadde xogayaha guud ee maamulka gobolka Banaadir gudoomiye ku-xigeenada maamulka gobolka Banaadir taliyaha ciidanka booliska Soomaaliyeed taliyaha hay'adda NISA ee qaranka wasaaradda amniga gudaha ee xukuumadda federaalka Soomaaliya iyo wasaaradda gaadiidka iyo duulista hawada Soomaaliya ujeedo wargelin ku saabsan dhismayaasha xeyndaabka garoonka Aadan Cadde ee magaalada Muqdisho gudoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqa magaalada Muqdisho markuu arkay warqadda sumadeedu tahay iska aada eber 867 ee soo baxday 2024 ee ka soo baxday hay'adda duulista rayidka Soomaaliyeed taariikhdu markay ahayd 25 bishii 8 2024 ujeedaduna ahayd cabasho ku saabsan dhismayaasha dhaadheer ee ku hareeraysan garoonka diyaaradaha Aadan Cadde markuu arkay warqadda ku taariikhaysan 24 bishii 8 2024 ujeedaduna ahayd warbixin ku saabsan qatarta dhismayaasha agagaarka garoonka diyaaradaha magaalada Muqdisho kana soo baxday xafiiska agaasimaha guud ee howlaha guud ee gobolka Banaadir markuu arkay cabashada shirkadaha diyaaradaha caalamiga ee ka howlgala garoonka diyaaradaha ee magaalada Muqdisho markuu arkay sharciga caalamiga ah ee duulimaadyada rayidka ee Cabo markuu arkay xeerka hay'adda duulista rayidka Soomaaliyeed ee dhismayaasha agagaarka garoomada wuxuu soo saaray xeerkan qodobadiisa hoos ku xusan yihiin waxaa gabi ahaanba la joojiyay dhismayaasha dhaadheer ee ka socda agagaarka garoonka diyaaradaha magaalada Muqdisho gaar ahaan degmooyinka Xamarweyne Xamar Jajab waa Beri Wadajir iyo Dharkeenley qaybta Jazeera laga bilaabo 11 bishii 9 2024 in aan laga dhisi karin xeyndaabka ku cad naqshada lifaaqa ee degmooyinka aan soo sheegnay waxaana loo kala qaybiyay 3 qaybood 3 zones wuxuuna ka bilaabanayaa qaybta koobaad oo ah gudaha garoonka iyo xalane oo aan laga dhisi karin wax ka badan guri dabaq ah oo aan ka dheereen hal biyaano aagga waxaa xeyndaabka gaga diyaaradaha ee Aadan Cadde aagga labaad lagama dhisi karo guri dabaq ah oo ka dheer 3 biyaano G+2 aaggan waa xeyndaabka leh baraha kontaroolada iyo dhagaxyada ee laga soo galo garoonka diyaaradaha Aadan Cadde ee loo yaqaan Green Zone iyo qaybta saddexaad oo ah wadada Via London ee degmada Xamarweyne wadada 22 Oktoobar ee degmada Waaberi wadada Danwadaagta ee degmada Wadajir wadada Jazeera ee degmada Wadajir iyo Dharkeenley oo ah Red Zone cidii ku xadgudubta waxaa laga qaadi doonaa talaabo sharciga waafaqsan 3 in sida ugu dhaqsiyaha badan lagu tiro kooban loona sameeyo habraac gaar ah oo lagu xakameynayo guryaha dhaadheer ee la calaamadeeyay si loola socdo badqabka garoonka diyaaradaha Aadan Cadde ee magaalada Muqdisho looguna hortago amniga guud ee garoonka diyaaradaha magaalada Muqdisho 4 in dhammaan anteenooyinka uu dhirarkoodu gaarayo 10 mitir iyo dabaqyada ku yaala aagga la xadiday muwaadiniinta iyo shirkadaha iska leh ay ku rakibaan nalalka gaduudan hazard beacon lights si diyuuradaha joogga hoose ku socda ay u arkaan habeen iyo maalinba 5 haddaba milkiilayaasha iyo hay'adaha dhismaha ku leh aagga xadidan ee garoonka diyaaradaha waxaa la farayaa in maamulka gobolka Banaadir iyo hay'adaha amniga kala shaqeeyaan fulinta waajibaadka shaqo ee dhismayaasha dhaadheer ee aagga la xadiday 6 madaxda iyo xafiisyada awaamirtan qusayso waxaa lagu wargelinayaa inay meel mariyaan awaamirta iyadoo aanba waxba laga bedelaynin fulin wacan xeerkanina waxaa saxiixay gudoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqa magaalada Muqdisho mudane Sheekh Yuusuf Xuseen Jimcaale Madaal